muhiimadu waxa weeye haynoo dambayso hebel magaalba muslim Soomaalida ninka qaybinaya in la dilo waajib way ninka dalku qaybiya waa in la dilo waajib kan farmaajo hadda miskiinka ah waa doqon waa horay inuu waxan kala tuuro kulli inuu kala tuuro laano sharciba ma aha dan kuma jirto waxa inooga sii daran hadda qaybinta siyaasiga ee dalad waxa ka daran qaybinta diineed qodobka inaan baroojiwaan rabo waa hilmaamayba qodob khatar jira qodob khatar ayaa jira in yasiyad baraa oday aqli badan buu ahaay masaa'il kale oo isku haysanahay dambeeyaane xilligi hada guriga baa fadhiya waxba ka garan maayaan uma isku iloobay waa waayeelay xilli 86 ayd baan u malaynaya 88 wafdi Iran inoo yimid muqdisho yimaadeen waxaan rabnaa inaan Soomaaliya maal gelino safarada fiican ka furanno aynu wadanka dhaqaalihiisa soo qaadno waxna ogolaataan qoliye la talin hayaasaga iyo qoliyii golaha sare iyo saraakiisha oo dhanba waxay isku waafaqeen wasaaradii in mankaas dhaqaale fiican laga qaato wadankana safarada fiican looga furo sida carabta loo soo dhaweeyo ina sabir wuxuu ku yiri gaajaba in haysay yeeli mayno Iran bas bay naga tahay maxaa jira Soomaali qabiil iyo xogo goof iyo beer iyo bay isku ku dagaalantaay maalinkay Iran inoo timaado madhab shiica bilaaban Soomaali waxay u dagaalamaysaa buri sida carabta kale barka wuxuu yiri hadda waxa u dagaalami doontaan buri shiica iyo sunno waxa carabta hayso Soomaalida arag marka waa istiraatiijiyo waxa weeye ku salaysan nabadiina amnigiina diineed wuxuu asaas u yahay inaydan ku kala tagin aragtida diineed ninka Soomaaliya lagu arkay inuu shiicnimo wado kurka la gooyo sharciga qaba hadayba wadadalahayeen waxa banaan in gaalnimo maslaxa loo galo ninka umada qaybinay maslaxa loo dilo maxaa ku diideen marka qadiyada aad ogaada midan qaybinta dalkana hada waa doqonnimo ninka ka taliya Soomaaliya ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee anaga dantaanada diineed waxay ku jirtaa inay Soomaaliya mid ahaato ninka qaybinayna wadaadna Allah ka dhiga madaxa lagu dhufto laano kan gaalkay ka talilaya markaan tabar helaana ka tuuran doona dalku noo midaysano waaxid ah oo qaybsanayn markaan tabar helo anaga cid baraka la kaga qaadi doon laakiin qoom duloobay oo kala tagay oo 20 firqa noqday seel isku keenay waagadam warkaas carab la isku keeno goof yar oo banaadir ka yar ba dawladda Kuwait iyo Bahrain iyo Soomaaliya arag Qatar iyo Qatar oo dhan naga reer macallina ka badan Bahrain wada aragteen qoyska Soomaaliya oo yar ba ka badan Kuwait jibsan Soomaaliya xataa ma dhanno mid walba boqor baan ahay halkaas uu taagan yahay inay midoobaan oo dan diineed iyo mid adduunyo ku waliga la sugi maayo Soomaaliya maxay tiraahdaa toogtaadu markay qaybsanto taladaaduna lamaanaatay nimay toogtiisu lamaanaatay baa taliisan lamaanaatay markaad kaliga tahay ee islaamku aadan guursanin xoolaha leedahay abtiga 10 si walka ku yimid laba halaad ku dhiib ina qaraabatiin koranka geela ku jira u kaxee gabarku soo booqatay baarqabkaba si fartan dad qoris islaam baa reerku ku soo birtood guursatay neef ma bixin kartaa aan kala tashan neef kuray baa dhashayba meeqaad noqoto marka saddex baad noqotay lama dhaqaajin karo urgi baa Allah kan si daawo wuxuu ku soo dhiibaya wan urdufo ku soo dhiibay ama uu badiidiba ummadda mar haday qaybsanto rajam malaha nin tukanayo salaad ku jiro sujuudsan uu nabigu yiri Abu Bakar oo soo dib Soomaaliya ma garanaysa waa nin sujuudsan had nabiga waxa la ila soo diray dadka tukan aan ka leexdo Abu Bakar wuxuu nabiga Allah sayfta buu qaatay wiladul istaagay wuxuu yiri ma nin tukan haya nabiga amarkiisi uu ku dhici waa nabiga Allah haduu tukan seen yalaabo sayfta keen Umar buu nabigu u dhiibay wuxuu Umar oo ninka soo dib أنا سلات كتيرة عمر نتيو كلا قبضتي والنوف سينواي نفرت تاجا التحيات وكها إلهي وحيدها هي وحدين بقى هذا كاجا لأوسن شرين ما بيقولوا الدل كويري وحور أمر ما بيجي سبع فهم ويدي بقى
amarka nabigu ku siiyey bal ku noqo nabi allow maxaad tidhi seefta iska keen baa la yidhi cali buu nabigu u dhihi cali ninkaas soo dil adaa dili doonaba haddaabaad ku gaadho wey ninkii intii loo tashanay wuu cararay muxuu haddii abubakr alla kaa badbaadiyey cumar alla intuusa cali ku soo gaadhay meeluu ka baxa la waaye nabigu wuxuu ihi waladii nafsu muxamadin biyadihi low qataltumuuhu ma اkhtalafat maani min ummatii allaha naftayda gacantiisu ay ku jirtaan ku dhaartay haddaad dili lahaydeen laba axad oo muslimiinta ka mida isma khilaafeen dhiigga muslimiinta maxaa loo daadin inaad midowdaan mararka qaarkood yaa amar haya rasuulka ilaahay na baray dhiiggu inuu xaaraan yahay midnimadu waa khatar wey haddaad kala tagtaan wax idiin socon ma jiro soomaalida waxay tidhahdaan ama reer macallin waxay yidhaahdaan walaalo muxuu ahaa iskhilaafay wayna xoolo yaraan wayna xabaal badiyaan soo sidaa ma ahayn way ogyihiin midnimadu waxay tahay wactasimu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu tafaraaruqa cudur ka badanoo ina haysta ma jiro ama mid siyaasi oo qowmi ha noqdo ama mid ha noqdo markaas diini ha noqdo istiraatiijiyadeennu waa inaan diinna laisku khilaafin dalla aan la qaybinin labada ka shaqaynaysana waa in lagu jihaado intaa waa fariintayda in badanna waa soo wadayba hadday marka calmaaniyiintii iyo qowmiyiintii dimuqraadiyiintii wadaad xumihii soomaaliyeed hadday waxay leeyihiin hawshii ummadda ha la midayo 10 sanaan ka soo dhawaaqayo ilaahay waad waalanta kulligood in la dumo waajib 10 sanaan soo lahaa hadday ku leeyihiin waana la qaybiyey waddanku waa laga shaqaystaa kana sameey waa lagu kala tagay hawsha iyada